بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله كسو هذا برنامج كينا عديسو ديال أنا عبد العزيز محمد حسن أو الله وبرنامج شدان أنت نيجي دايو ما أنت وحن قاعدين أنا ما برنامج دي قدام بيسان سوق قاعدين وحيد سدح عن برنامج أنا كسو شاكيني برنامج كو رياض صح لنا واكن ما أنت وحن قاعدين هنا variables أي أو سدح عن برنامج كهلاين ما أنت وحن قاعدين هنا arithmetic operations saddexdan programmer ayaan kasoo diyaariyey jaftarkan sidee la iskugu daraa laba number iyo sidee numberkan squarekiisa sidee loo soo saaraa iyo si loo xisaabiyo saddex maado average-kooda samkooda already waa ku jirta marka waxaan qaadanaynaa insha Allah taala saddexdan programmer waxaan soo kicinaynaa div plus bilaabeyna standard file ka qorayna okay waxaan u baahanahay marka programka ugu horeysa naga rabaan soo kicinayna how to add and subtract numbers sidee number la iskugu tara oo loo kala jaraa iyadoo la isticmaalayo programkan waxaan rabnaa tusaale ahaan laba lambar inaan isku darno isla labadaas lambar userku soo geliyo oo kala jaro sida loogu sameeyaa marka okay laba variable oo waxaan abuuranaynaa laba variable oo noo qabanaya numberadaas labadaas variable waxaan kala magacaabay labadooda waa integer number maadaama ay hore ugu soo sharaxnay labada variable waa a iyo b ayaan qabsanay labadooda data type-kooda waxaa lagu xareey doonaa numberiska ah qofka userka waxaa lagu amraa inuu number soo geliyo kadib labada tiro noo soo geliyo ayaa waxaan ku sameynaynaa ama isku diraynaa ama kala jaraynaa ama ku dhufasho ama u qaybin already afarta operation aan ku sameynaynaa insha Allah taala printf enter first number soo geli numberka ugu horeeyo userka ayaa lagu leeyahay numberka ugu horeeyo soo geli /n waa new line igu bilaw semicolon line walba marka ugu dambeeyay waxa lagu soo sheegnay waa semicolon scan f number keys iyo qo percentage d maadaama uu number yahay comma ampersand kadibna variable name ka la sheegay okay hadana marka lambarka labaad la sheegaa variable ka labaad oo numberka labaad noo qabanayay hadana soo geli enter second number numberka labaad soo geli /new line ayaa leena soo ma kadibna semicolon kadib waxaan sheegaynaa scan f percentage d comma ampersand b labadii number userka soo gelina wax noo qabanayo waxaa halkan ku declare gareynayna number variable noo qaban doono labada number niskoo diri doono okay integer aan ka dhigaynaa sabta waxay noo qaban doontaa labada tiro oo userka noo soo geliyo ay isku diri doontaa kadib noo soo daawacanayna insha Allah taala waxaan leenahay sum waxay la eg tahay tirada ugu horeysa soo geliyo variable noo wado a lagu diray tirada labaad oo userka noo qaban doonto b aan noo hayso numberka koo oo soo geliyo lagu diray numberka labaad oo userka soo geliyo labada number oo la isku diray kadib inta lagu shubaa sama waxa lagu shubaa labada number oo la isku diray kadib waxaa leenahay printf sum equal waxay la mid tahay percentage d comma aan leenahay kadibna muxuu noo sidaa kan isku darka labada diro sum ayaa soo qaadanaynaa kadibna calaamadii semicolon ayaa gadaal dambeeya kadib hadda waan gareynaynaa halkan waan tagaynaa execute compile and run okay ma save marka hore waa saveena ku saveena arithmetic operations ku saveena save adena meesha inuu yili naan fiirinayna marka okay waan gareynay soo geli okay sagar cusub soo noogu soo bilaabo /new line saas ma waa qaladnay sana saxa /ka dhankana la mariyaa /new line hadda sagar cusub ka bilaabaya insha Allah taala haddaan fiirino marka
waa kan sagir cusub noo bilaabay enter first number ku hore soo geli 5 ay soo geli oo dhahdane enter second number waxaan ka gelinaa 6 waxaan rabnaa 5 iyo 6 isku darkooda waa meeqo waa 11 inoo soo saar waa aragtaan sum equal waxay leegtahay 11 isku darka labada tir oo soo saaray qaabkaas lagu sameeyo kala jarkana waa la mid kaliya waxaan sameynaynaa bis labada lambar soo deegili inta waxaan ku dhiglaar gareynaynaa variable noo qabanayo kala jarid difference ka soo qabay dif aan iska dhahno halkan waa inaan tagnaa waxa leenahay dif hala mid noqoto a laga jaray b kadibna halkan intaan iska copy gareysayna print kadibna basta halkan ku leenahay kadib waxa ka bedeleynaa sum to waxaan ka dhiganaa inta difference ama difference iska dhana ama subtract ama difference ku fiican tahay difference-geeda isku farqiga labadan dir la kala jaray kadibna waxaan sheegaynaa diftaas soo qaadanaynaa difference variable-kaas hadda caadi waan rangaraynaa isku darka labada xabo waa soo muujinaa saan rajeynayno exclude dhahnay okay number ku hore soo geli waxaan soo gelinay 6 numberka labaad 4 okay 6 afar ku dar meeqa wax isku darkooda waa 10 6 afar ka jarne waa 2 labadaas jawaab rabnaa midna isku darkooda waa 10 kala jarkooduna waa 2 sum equal 10 difference oo ku qabtay aniga marka hore inta ma ku dhihin new line bix halkaan waxa leenahay new line sagir cusub bilow page-ka kala soo socdo hadda ran gareena marka execute from compile and run soo jeedaan number kor soo geli 6 soo geli kan 5 soo geli hadda maxaa raay isku darkooda waxa kale waa 12 kala jarkoodana hal okay sum waa 12 difference ne waa 1 saa aragtaan okay multiplication ka ku sii darnay iyo division ka intaas baa la sameey karaa inti multi adena multiplication oo soo gaabinay intan waxa soo gaabinay division v waad meeshan okay aan kaliya sameeynaa intaan hadana click siinayna multiplication say way lagu dhuftay wixii la soo geliyay waxa ku dhufataa b wixii la soo geliyay okay division wixii la soo geliyay loo qaybi b wixii la soo geliyay okay kadib intaan copy-yeysayna halkaan bas ku dhahayna kadib inta waxa dhahayna multiplication laba tir la isku dhuftay kadibna variable multiplication kiisi waxa waa multiplication kiisna waa kan difkan waa bedelayna waxa ku bedelayna variable magaciisa noo siiday isku dhufashada waa maarti maal bisa noo siiday okay kan aadi division kiisna maxaa waa division asina waxa noo inta la f tantir waxaan ku bedelaynaa v okay hadda waan gareynayna execute adeena aan fiirino inta si hadhowti new line oo laba hadda new line si dheena slash n new line ka bilaw halkaan new line noo dheh halkaan new line noo dheh dhamaan afarta basic ka rabnaa marka afarta operation ayaa ka rabnaa insha Allah taala okay tirada ugu horeysa soo geli waxaan soo geliyay 8 afar ku dar waa 12 jawaabta ugu horeysa isku darka waa 12 inoo soo baxda 8 afar ka jar 8 afar hadii laga jaro waa 4 isku dhufashadoodana waa 32 kala jarko oo isku qaybintoodana 8 afar u qaybin 2 intaas aan ka rabnaa saa u jeedaan isku darkooda waa 12 kala jarkooda waa 4 isku dhufashada waa 12 32 aan dhahe isku qaybintoodana waa afarta basic ayaan ku sameynay programkan ku dar ka jar ku dhufo waa symbol of calculator ayaan dhihi karnaa okay aan aadno programka labaad kan waa soo naqanaynaa kana dhameystirayna waxaan rabnaa program xisaabinayo average of 3 subjects saddex maada soo gelinaysa wuxuu ku sheegayaa celceliskooda ma waxa keentay
saddex maado celceliskooda waxa keenta ayuu ku sheegaya. okay saddex maado taana waa iska direynaa. saddex maado ayaa qabsanayna math oo kale, English oo kale iyo waxa qaata Soomaali. saddexdaas maadaan fiirinayna. saddexdaas maado ayaan sheegnay. kadib waxaa leedahay enter printf soo geli marks of math. xisaabta waxa keenta noo soo geliba waxaa ku sheegi math kadibna /n dhex markaa soo gelisana new line bax. scan f percentage d comma kadib waxaa sheegaysaa waxa lagu qabanayo ampersand aan leenahay kadib math aan leenahay soo ma. haddana waxaa leenahay printf enter marks soo geli marks of English /n inta wax laga wada inii sheegay waa new line bax percentage f percentage d dheh comma English aan soo gelinay Englishkana wuu sii hayay. mid saddexaad printf percentage d enter aan dhahna horta soo geli enter marks of waxaa soo gelisaa Soomaali. scan f percentage d comma ampersand Soomaali. variable magaciisa haddaa qaldo waa ay qaldooni doontaa insha allahu tacaala, waa iska jeegaraynayna. saddexda maado waa soo geli waa noola haya soo ma. maxaan rabnaa in aan soo saarno average waxaa ka horeeya totalkiisa inaan soo saarno. aan declare garaysan horta total aan dhahno flood intaan aan dhahno flood waa u dhahna jajab percentage waa jajab boqolkiiba intaasaa soo baxay soo ma. flood average. totalka muxuu lamid yahay marka? total wuxuu lamid yahay math oo lagu daray English oo lagu daray Soomaali. intaas la isku daray totalka lamid. intaan waxay ugu jirtaa total. daarta total waa daawici kartaa aan daawacno saad u fahanto. horta average aan kormarayna. average waxay la eg tahay total oo loo qeybshay imise maada ayaa rabnaa inaan soo daawacno saddexdaas maado. aan hal mar wada daawacno printf total of all markska dhan isku darkooda meeqa waay. kadib waxaa wacda variable-ka kuu sidii. intana waxaa dhahaynaa /new line. aan baxna haddana printf average aan soo qaadano average of all marks percentage d aan dhahno /n kadib waxaan soo qaadanaynaa avg. hadda waa execute gareynaynaa. aan fiirin bismillah. soo geli marks of 3 saddex maad soo geli 90 aan dhahno. ninkaan 90 oo keena maadada ugu horeyso ma. marks of English meeqoo keenay? ingiriiskana wuxuu keenay 80 iyo 90 haddii la isku daro waa imisa? 170 soo ma. Soomaaliga wuu liita aan dhahno 30. waayo intuu ugu qoray marka hore waxaan soo dhihin /n new line bax ma soo dhihin, gadaalan ka soo dhihi doona dhimala. 80 iyo 90 isku dar waa imisa? waa 70 soo ma. 170 soo ku dar 200. totalka waxaan ka rabnaa 200. average-kana asigaa noo soo saaray. average-ku ma soo saarin sababtaan fiirinayna. wuxuu noo soo saaray total markets 200. waa sax balse waxaa naga qadan average of all markets 0 qoran.
average-kiisu waa 0 qalad ayaa jiro leeyahay waa qalad waa sax ayl average markisaan ka rabnaa boqolkiiba intaas boqolkiiba 200 oo keenay laakiin average-kiisu waa 0 waxbaa ka qaldan aan dib ugu laabano programka meesha wax ka qaldan yahay fiirino inta total waan soo sax average waan declare okay waxaa noo declare kasan average inuu yahay float percentage d waa dhaxna meeshaan ay qalad ka jirtaa marka meeshaas percentage d mal rabo percentage f ayaa laga rabaa float maadaama ay tahay waxaan percentage d macquul ma f ayaa laga rabaa float saasoo ku qaadanaa insha Allah taala tijaabina mar kale execute run aan dhaxno haddaan fiirinayna maadada ugu horeysa wuxuu keenay 90 ayuu keenay xisaabta 90 oo keenay Englishkina wuxuu keenay 80 Soomaaligana wuxuu keenay 30 isku dar 200 average markskana wuxuu keenay 66 boqolkiiba baasay 0 dan waa soo gaabi kartaa halkaana waxaa leedahay bis percentage f kan hal gud bis bax ama laba gud waxa harta dhigi kartaa laakiin hadda hal gud aan dhahaynaa aan tijaabino mar kale enter markets of math waxaan soo gelinay markets of math wuxuu keenay 70 aan iska dhaxno inta wuxuu keenay 90 aan dhaxno intana aan dhaxno 80 oo keenay okay wili waxba wadiidan yahay 80 aan fiirino mar kale okay bonta one ka hormaray bonta 1 aan dhahay bis haddaan dib u eegno okay markets of math wuxuu keenay dhaanay 190 okay 80 aan dhaxno saa u jeedaan qofkan wuxuu keenay 90 boqolkiiba baasay 273 oo qayb waa 90 boqolkiiba saa aragtaan qofkan wuxuu baasay 90 boqolkiiba average-kiisa waa soo saaray the last program aan tagno programka ugu dambeeyay okay calculate the square from user of integer tusaale userka wuxuu soo geliyo wax kasto userka soo geliyo in la square gareeyo 5 oo soo geliyo 5 square-kiisa maxaa waay 25 3 oo soo geliyo 3 square-kiisa maxaa waay 9 4 oo soo geliyo 4 square-kiisa maxaa waay 16 saasaan rabnaa insha Allah taala program noo sameeyno waxaan iska tirayno waa ka faa'iideynayna okay variableadan bis inta aan ku bedelna bis kan uma baahni eegaas bis u baahna bis wax kale ma baahni inta iga tir okay inta waxaa leenahay soo geli number ka rabtina square garayso enter number that you want to square number ka rabtina square kiisa ogaato soo geli okay slash n leh walaha soman inta variable ka umbaso soman qabto soman okay number ku soo geli soo kan ma hayo ha hal la mid noqoto lagu dhuftay isla tiradii concept-ga hal leeyahay tirada la soo geliyo laba mar la isku dhufto waa square of number ka soman okay aan daawacno bis print f aan dhahno square of and percentage d aan dhahno square is aan dhahno square kiisu waxa weeye percentage d aan dhahno comma aan dhahno ay tirada soo geliyo soman ay aan dhahno bis aran gareyna marka execute aan dhahno run program okay number ka soo geliyo number walba aan soo geliyo waa la square gareeyaa tusaale hadda waxaan ka bilaabaa 7 ku dhuf meeqa waa 49 the square is 49 okay tira kala gelino saan ogaano okay afar aan gelino afar ku dhufo afar square meeqa waa 16 inoo soo saar rabnaa waa 16 saddex program ayaa maanta soo diyaarin insha Allah taala waa Cabdi Ciise Maxamed Xasan oo idin leh si ay nabad geliyo barnaamij